يا مقلي مركب هيبك إذا كل إنسان ملايين oo anigu ma yihiin maxaan ku radaa food scientist ma yihiin oo cid kale ku shaqo leh inay ogaato wax kasto cunno jira haday noqon lahayd grains ama bariis iyo digir galay haday noqon lahayd hilbaha haday noqon lahayd kalluunka waxaas oo cid baa taqaana inta ku jirta dux inta ku jirta maxaa la dhigi jiray maxaan ku radaa wax kasto ku jira marka laakiin sidaan malaynayo haddii iduhu aysan ku jirin cholesterol ma garanayo meel kale ku jirayso waa malahayga waa dhici kartaa in maxaan ku radaa ku qaldanahay laakiin se waxaan ku malaynayaa wankii buurnaa iyo biradiisii in aysan cholesterol ka maqnayn maxaa yeelay waxa laga hadlayo waa saturated fat haddii kolay dadka fatka iyo maxaan ku radaa iyo scientistiga ee arrintaa darsa waxay yiraahdeen xaada waxa uu kala baxdaa mid cakiran oo maxaan ku radaa saturated ah oo hadii biyo lagu dhaxrido degaysa iyo mid maxaan ku radaa sida olive oo kale oo monosaturated ah oo maxaa la jira sababta oo olive oil ka iyo coconut oil ka wada sidaha ka yimaada maxaan ka dhirta ay uga fiican yihiin kuwa kale animals ka yimaada marka anigu shakhsiyan waxaan sheegi lahaa saliid hadeeba ka timi xayawaan xayawaanadana kuwa dhaqanay aad ku jecelahay looda geela ariga iyo idaha runtii faa'iido badan ma laha sababtaasina way dadka iyagu waxay la cimray iyo maxaan ku radaa iyo dib badan yihiin oo gaajo iyo maxaan ku radaa cudurro badan yihiin sababtaas weeyaan sababta Japanese-ka iyo dadka kale ay nooga cimri dhaadheer yihiin way dhici karaysaa in qof 100 iyo 120 sano uu gaaro sababtoo ah dad fiiriso dadka Chinese-ka ah markaan oo darseeno dadka caafimaadka adduunka waxa weeyaan cunnada ay ku nool yihiin baa waxay tahay dhan wax loo yaqaan ama shrimp iyo waxa khayraadka badda oo runtii Ilaahay ugu galaystay oo xitaa waa waxa kaliya ee xitaa hadii meed lagu helo la cuni karayo diintu ay aad u support gareysay geelay dhaqanka aanu ka nimidna runtii anagu ma garanayo intay qaadanayso inaanu ka faa'iideysano xoolaha Allah subhanahu wa ta'ala nasiiyay marka caafimaadka xaggaas ku jira labo waxaan dhihi lahaa maxaa la dhihi jiray dhirta beerahaas hadii aadan maxaan ku raadaa aadan baran sida loo cuno maxaan ku radaa fruits iyo vegetable-ka waa very important kuwaasina maxaa ku nafaqooda badan dhibaatadooda yar marka kuwa hal badsado ayaan ku talin lahaa halka maxaa la dhihi jiray ida iyo hilib ari iyo geel runtii fanaag badan ma ilaha hor waa u soo cunay nagu filan intaan ka soo cunay marka insha Allah jawaabteeda intaas ku qabsan lahaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله شكرا وتكلمنا 10 سؤال وخصوصا تكلمنا على نحن برضه قلنا عندي واحدة لما تودعين نسبة مركة الإسباب بقى لكن مرة يحكي إيمانية مرة يحكي إيمانية ممكن واحدة لما كانت بدلنا حدو تذكروا إنسان لا تعامل بدل هذا سجع لا تسجع سيدا هذا بعرف فرسالة هذا السوق إنه حتى وحي نقول إنساني environment كدو environment هذا أو راح كل إيو عنا فريش أو أن لقيدين أو أن ثلاجة لقيدين أو أن فروزن نقولين يعني إنه حاجة كويسة خضار عن نقول إننا وحي خضار نجر عليها أو أن fertilizer أو أن لبعضهم يعني إنه خضار تاني معه حاجة مركا عنوين كانوا هيسني هي عميرة كانوا هيسني مركا الإسبار بعده هل كان ديال أمية هل كان محمود من عنو الحوشي ingredient له وصيري أي عين لجسي وحينهم من لو كلامته بيروح لبقع منها يوم سي أي أوكلان والعقل وقسم بيوم أبوه فربنا أمام بيا فربنا هيقولنا إن هذا اللي يلعبون وحيقول لي حوارات لقولنا حين بيوم هي ترى حتى لقولنا هي بتوجو لقولنا سيكون يشان ميزان هو يبصر مرة وحين وصل للدنيا ماني مايند يعني وصل ظروف تاسو مرة بعدما أقول مرة كنت تخصصتي وحوها علمي كان هديه بقسم كل يوم
bulshada bani aadamka innaga hadda dadkeenna duruufteena Soomaali ahaan marka aan u soo noqdo statistical dadkeena inta iyadoo caafimaad qabta halka timid haddana halkaas uu ku sheegayay iyagoo cudur qaba ka noqday markay carradii ku noqdeen haddana caafimaaday waa tiro badan waxaad moodaa marka in waxa meesha iyada ayaa la yahay wax saamayn ku cudurrada waxaa marka aan soo jeedin lahaa waa soo jeedintayda dadkiina cilmiyadaas iyada ku takhasusay cunooyinka ingredientskooda uu keenayo faadka ziyaadada ah oo dadka u keena ama cabitaanada dadka u keenahaya sokorta badan ee ku jirto oo dadka u keenahaya inta diraasaadka ka samaysaan markuu inaad dadka u soo bandhigtaan si ay ugaga digtoonadaan maxaa yeele innaga wax akhriskeenu waa yeli cunada markaan qadanayna dukaanka intaan mataqano baan iska soo qaadnaa logaan waa rooti rootiyada qaar xoojiya ku jiro oo mataqana wax badan marka arrimahaas iyada ayaan soo jeedin lahaa inaad intaad diraasad ku samaysaan mataqaanaa public health aad ku jirtaan in cunooyinka noocaasay tahay dadka naga digniin aad ka siisaan kuwa lagama maarmaanka inay ka digtoonaan ama ay ka fogaadaan oo u keeni kara jirkooda kordhiko sababtu waxaa weeye dadkeenu economica ee dad awoodi kara maaha hadda inay tagaan mataqaanaa meelaha physicalka lagu samayn kara oo ay lacag iska bixiyaan ma awoodi kara ama dhaqan ahaan baa laga yaabaaba inuu uga xishoonahayo muxuu ahay inuu sameeyo siyaabaha qaarkooda dadka ay u dhaqanhayaan marka bal arrintaas intaan anigu muxuu ahay soo jeedin lahaa waa mahadsan insha allah